dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan lahayn awood al-shabaab ay ugu diidaan canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed. wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo la hadlay wargeyska Mareykanka laga leeyahay ee The Washington Post ayaa si cad u sheegay in Soomaaliya ay xaalad cabsi leh ku jirto taasina ay keentay in shabaab ay awood ku yeeshaan magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya in sababta shabaab looga adkaan la yahay ay tahay inay yihiin dad Soomaaliyeed. dowladdu ma lahan awood weyn oo ay uga hortagto al-shabaab inay ganacsatada lacag canshuur ah ka qaataan. dadka ururiya canshuurta al-shabaabna magaalada ayay si xor ah isaga dhex maraan. mashaakilku waa hal arrin oo kaliya. al-shabaab waa Soomaali aniga oo kale ama dadka oo dhan ah waan isku muuqaal egnahay meel walbana waa ay joogaan oo way nagu wehliyaan. waraysiga wasiirku siiyay wargeyska The Washington Post ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay maalmihii la soo dhaafay diiday qaraar dowladda Kenya ay golaha ammaanka hor dhigtay oo ku aadanaa in dagaalyahanada al-shabaab ee ka dagaalama dalalka Soomaaliya iyo Kenya lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah oo ay ku jiraan al-Qaa'ida iyo ISIS kaas oo xeerkiisu yahay 1267.